السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسو دوادا channelka النقاية ميديا aad uga barateen inuu idin soo gudbiyo sheekooyin macaan badan caawana sheeko ayaan idin hayaa balse sheekadan sheekooyinkii hore way ka duwan tahay oo waxay ku saabsan tahay dooli marka maqashaan dooli waxay leedahay sheekadan maxay tahay dooliga laakiin ma aha dooliga aad ka siiseen waa dooli aad iyo aad u qiimo badan dalka Cambodia aad loo jeclaa Cambodia waa dal ku yaala qaaradan Aasiya khaasatan koonfur bari ee Aasiya dooliga magaciisa waxaa la yiraahdaa Magaba isbuucan asiga ayaa adduunka qabsaday jaraa'idada telefishinada meel walba asiga ayaa haystay dooligan waxaa lagu tababaray dalka Tanzania hay'ad u qaabilsan tababarka dooliyaasha ayaa meeshaas ku tababartay wuxuu ahaa dooli Afrikaan ah oo aad iyo aad looga helay shaqooyinka uu qabanayay ciwaanka sheekadan ama jaraa'idada ka soo baxay adduunka waxaa loogu magac daray Magaba jiir geesi ah oo badbaadiyay nolosha dad badan oo reer Cambodia ayaa dhintay marka sheekadiisa ayaan gudaha u galaynaa waynoon bilaaban doontaa insha Allah Magaba waa dooliga magaciisa oo ahaa dooli Afrikaan ah oo miinooyin badan oo ku aasnaa dhulka ka helay Cambodia ayaa dhintay dhamaadkii isbuucan waa axadii dhaweed ee la soo dhaafay ururka tababare dooligaas ayaa talaadadii la soo dhaafay ku dhawaaqay wuxuu ahaa 8 jir ururkaas oo tababare dooliyaasha waxaa la yiraahdaa Abobo waa urur tarbiyeeya oo tababara waxa loogu yeero hero ratis sida Magaba sida dooligan hadda ka hadlayna oo kale ayaa sheegay in uu caafimaadkiisu wanaagsanaa laakiin uu bilaabay in uu hoos u dhac ku yimaado oo wax badan seexdo oo cuntadii ka go'o maalmihii ugu dambeeyay dhamaanteen shaqaalaha Abobo waxaan dareemaynaa luminta Magaba waxaanan uga mahadcelinaynaa shaqadii cajiibka ahaa ee uu qabtay muddadii 5 sano ahayd ee uu shaqada ku jiray Magaba waxa uu helay in ka badan 100 miinooyin ah iyo walxo kale oo qarxa taas oo ka dhigaysa in uu yahay halyeeyga ugu guulaha badnaa ururkaasi Abobo waa ururka tababaray ama hay'adda tababartay dooliyaasha ilaa iyo hadda sida ay hay'addu sheegtay Abobo waxay sheegtay in Magaba shaqadiisa ay u ogolaatay bulshooyinka Cambodia inay ku noolaadaan shaqeeyaan oo ay ciyaaraan iyaga oo aan ka baqin inay waayaan noloshooda marka noloshooda lagu dhaay yacni wadankaas wuxuu ahaa wadan miinooyinka dhulka ku badan oo dagaalo sokeeye eber ka dhiga oo dhulku meel la marabo lahayn marka iska socdo miina ayaa iskaga ka qarxiso laakiin dooligan ayaa nadiifiyay oo miinooyinkaas baari jiray oo raadin jiray markuu helana waa la qarxin jiray marka sanadkii 2019 hay'ad samafal oo caafimaadka xoolaha oo ku sugan boqortooyada Ingiriiska ayaa siisay bilad dahab ah dadaalkiisa wax urinta awgeed yani waxa loo tababaray inuu uriyo miinooyinka iyo waxaas uu sheegay meesha ku jirto iyaga oo sheegay inuu ahaa jiir geesi ah mar loo qabanayay xaflad oo lagu guddoonsiinayo bilad dahab ah Magaba waxa uu shaqada ka fadhiistay bishii June 2021 ee soo dhaafay laakiin hay'adda Abobo waxay isku diyaarinaysaa tababarida koox cusub oo jiir ah ilaa 20 hero ratis waxa ay ugu magacaabeen ayaa waxa tijaabiyay xarunta waxqabadka miinada ee Cambodia waxayna ka gudbeen imtixaankii jiir la yiraahdo Ronin ayaa la wareegay booskii Magaba waa jiirka hadda dhintay booskiis waxa la wareegay jiirka la yiraahdo Ronin in ka badan 60 milyan
oo qof oo ku nool 59 wadan Cambodia ilaa Zimbabwe ayaa ku nool cabsi maalinle ah sababtoo ah miinooyin loogu tagay dagaaladii hore ka dhacay ee dalkaas sokeeyaha ahaa sida ay sheegtay hay'adaasi Abobo. waa ujeedaan dooligan waa dooli aad iyo aad looga jeclaa dalkaas Cambodia oo la guddoonsiiyay heer uu gaaray bilad dahab in la siiyo. wuxuuna ahaa sarkaal weyn muddadii dambe u dhimanay laakiin howlgab buu ahaa shaqada uu ka fadhiistay. marka wadankaas ayuu ku dhintay axadii la soo dhaafay. ururkii soo tababaray ayaa sheegay ururka ayaa hadirtan wuxuu ku mashquulsan yihiin inay dooliyaal kale booskiisa ay geliyaan ay tababaraan oo miinooyinka ay baaraan. anagan dooliyaasha dalkeena waxa waaye saa u maleynayo birta dooliga loo dhigaa sunta dooliga loo daadinaa kooladii loo dhigaa markii la qabtana waa la dilaa biyo kulul lagu shubaa agteer qiimo ka mala ayakane shaqooyinkaas buu u qabtay. dooliyaasha xataa adduunka waa lagu shaqaystaa ka bartagba waaba aragnay dooliga heer lagu shaqaysta ayaa la maroyaa. cilmigii meesha ka gaareen dadkaas anagana waa gaari doonaa in xayawaanaadka aan ku shaqaysano deeq iyo xataa tababarneena anaga deeqyada xataa inay wax qabtaana laga yaabaa. marka sheekadeena caawa meeshaas ayay noogu eg tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waana ku mahadsantihiin sida wacan ee aad noola socotaan. aad iyo aad ayaan idinkaaga mahad celinayaa. teeda kale waa inaad noogu dadaashaan liketa badanaa ma saartaan liketa waa inaad noo saartaan. waana mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.